وهاجاج وحن حدا سو قاعدين halkan waa beerta libaaxyada ee magaalada Hargeysa oo saacadii ugu dambeysay si weyn baraha bulshada ay bulshada uga hadlaysay xaaladda ku soo kordhay oo ah in mid kamid ah libaaxyadii beertu oo baxsaday garabkayga midig xilliga waxa fadhiya Ali Maxamed Uracade wasiirka arrimaha gudaha ahna mulkiilaha beertan lagu xanaanayay xayawaanka noocyadiisa kala duwan bal xaaladda beertan uga hor bismillaahir rahmaanir rahiim runtii accident baa galabta ka dhacay accidentkaas wuxuu ahaa waxa jiray ku yaro oromaaho hilibka siiya galabtii marka albaabku furi jiray dibadna uu gali jiray dibadna hilibku uu qaybiyaa galabta waxa dhacday iyadoo roobda ayuu shuuxi u galay hadii jiray libaaxa caadiisana waxa kamid ah markuu roobkii waxa sudaya wuxuu jiray inuu cayaaro oo uu boodboodo oo uu dabada cararo inta kale waa iska kaalmo iska degan yahay marka roobkii marka daayay buu si hilibkii albaabkii buu furay dabadna labadii horeeyay u galay ayaa intii soo daafaday isagoo soo jiray marka isagana dhulkay ku dhufteen way sii dul mareen oo ku sii joogsadeen dabadna u baxeen waqtigii waxay ahayd fiidkii muxuu ahaa waqtiga afurka shaqaalo meesha ilaaliyaa jiro oo u tababaran siday bahalaha wax uga qaban lahaayeen hadii wax yimaadaan sidii ay maareen lahaayeen marka waxa joogay marka inaan aan dhalay iyo inaan kala joogay dabadna labadii libaax mid way qabteen kii kala carray kii bay ka daba yaaceen iyagoo eriyo dabadna gabadh buu qabtay marka yarkii aan laba xabood ku rido labada xabood buu ku dhuftay uu ka gooyay dabadna meel keenaho meesha agteeda ah ayuu garawa badan ku yaala buu galay gurmadkii dabadna runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa ciidamada booliiska markiiba ilaa soo gaaray marka baaritaan badan baan soo naanagay ciidanku marka inuu dhaawacay baan u maleynaynaa kii kale waanu haynaa halkan fadhiyo waa la tusi doonaa imika aanu qabanay kuwii kalena keeskii bay ku jiraan kana imikaanu xareerna haddii la yidhaahdo marka kaasoo halkaasuu ku jiraa booliiskuna runtii aad iyo aad bay waliba booliiska araryuuda iyo degmada labaduba aad bay noogala shaqeeyeen kaymihii aad baan u malnay marka habeen bay noqotay marka imika meeshii gaar baa laga hayaa ciidanka baa gaar ka haya inta subax waa ka bariyay haddii la yidhaahdo marka inaanu nolol ama isagoo dhintay qabanno haddii la yidhaahdo ayaanu doonaynaa waana kulleba in la dilaa bay noqonaysaa kaa wax dilay wax qabtay kii kalena waanu haynaa marka baraha bulshada waxaan ku arkay libaaxiyo Hargeysa dhex marayo la soo sawiray laakiin libaaxyadaas ma aha kan kuwaas waxa weeyaan berigii kaloonu dhacay ninka la yiraahdo madaxweynaha Yeltsin Putin markii dadku ay xeran waayeen ayuu libaaxyada ku soo daayay marka qaar kuwaasay ahaayeen qaarna qaar ka soo baxay range-kan Kenya iyo Tanzania ayay ahaayeen inaga wali abaar bay ku jiraan meel green bay dhex marayaan marka way dadaaleen qolooyinka soo qabtay laakiin greenkii bay ka saari kari waayeen meel doogle muxuu ayuu dhex marayaa iyo ay waaweyn dalkeena ma joogno ka dhex qeylay guriyihii gaalada ayay muxuu ahaay obaalkan hadii marka xayawaanka iyo arkaa way qeyliyaan wax walba arkaaba marka gabadhaasna dhaawac buu gaarsiiyay yarkii oromada albaabka furaysna way ku sii tunteen laakiin isaga may qabanin oo ay garanayeen kii kalena waa halkan aan ku haynaa kuwii kalena way ku jiraan marka hubku waxa weeye bahalka aan ku ilaalino haddii la is arko bahalka hadduu kii Soomaaliyeed dal iska celiyaaba ayaan ugu talagalnay هذا waxaan ku sii soconaa mid kamid ah libaaxyada oo la qabtay halkan ku jira oo Jumbo leeyahay bulshada galadna bulshada garaya waa helaan maraya waa ciidan baa ayaa ku maqan imika saastay dhaxaysa waa Jumbo isaga waa qabanay uu xiran yahay marka kii kale waa dhaawac oo kale ujiisa صح صح وهاك حبض دعيسه marka waa libaaxi ciidankii ku maqnaa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable beerta libaaxyada ee magaalada Hargeysa